Shirkadda Apple xarunteeda ugu weyn waxay ku taallaa magaalada Cupertino, gobolka California, waddanka Mareykanka. Shirkaddu waxay soo saartaa alaabo badan oo ay ka mid yihiin mobilada iPhone-ka, tablets-ka, kombiyuutarada Mac-ga iyo smartwatches-ka. Ku soo dhawaada macluumaad ku saabsan mid ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn ee soo saara mobilada ugu qaalisan dunida. Shirkadda Apple waxaa la aasaasay 1976 waxaana si wada jir ah u aasaasay Ronan Win, Steve Wozniak iyo Steve Jobs. 2 isbuuc kadib Ronan waxa uu dib u ceshtay saamigii uu ku lahaa kambaniga, waxaana sheerkiisa ku gatay $800. Haddii uu gadan lahayn sheerkiisa maanta hantidiis waxa ay gaari lahayd in ka badan $600 milyan. This guy is stupid. Haddii aad wadato product ay soo saartay shirkadda Apple, waxaad ku arkaysaa calaamadda tufaaxa oo dhinac ka go'an, taas oo ah loogada shirkadda Apple. Haddaba intay ka timid calaamadaas? Markii hore loogada noocan hadda ay tahay way ka duwaneed, waxaana sameeyay calaamadda Ronan Wayne oo ka mid ahaa 3 qof ee aasaasay shirkadda, waxayna ahayd noocan hadda kuu muuqda. Waxaa ka muuqda saynisyahankii caanka ahaa Isaac Newton oo hoos fadhiya geed tufaaxa ah oo xabad tufaaxan ay ka soo lalmato korkiisa. Laakiin calaamadii waxaa loo bedelay tufaaxa dhinac ka go'an. Taasna waxay ku timid waxaa jiri jiray nin la dhihi jiray Alan Turing oo ahaa injineer ku xeel dheer cilmiga kombiyuutarka. Alan waxaa lagu eedeeyay inuu sameeyay wax loo yaqaan homosexual oo inuu u galmooday nin rag ah. kadibna waa la xiray waxaanu isku dilay xabsiga dhexdiisa sanadka markuu ahaa 1941. goobtii uu iska dilay waxaa laga helay tufaax dhinac ka goosan ama dhinac ka go'an. kadib shirkadda Apple ayaa tufaaxii go'naa ka dhigatay calaamadda loogadeeda, waxayna ku weynaynaysaa ninkaas ku xeel dheeraa kombiyuutarka oo isku dilay xabsiga dhexdiisa. 2007 Apple waxay ahayd markii ugu horreysay soo bandhigtay mobilkeedii iPhone, waxa uu noqday waxa ugu badan uguna qiimaha badan ay shirkaddu u soo saarto dunida oo dhan. mar walba oo aad aragto mobil iPhone cusub, saacaddu waxay ku taagan tahay 3 saac 41 daqiiqo. sababtuna waxay tahay 9kii January 2007 saacaddu markay ahayd 3 saac 41 daqiiqo ayuu Steve Jobs u soo bandhigay dunida mobilka iPhone. magaca shirkadda Apple markeeda hore waxaa raacsanaa Apple Computers, sababtoo ah waxa kaliya ay soo saari jireen kombiyuutar, laakiin hadda way ka tireen sababtuna waxa ay soo saaraan alaabo badan. Apple waxaa ka shaqaysaa in ka badan 110,000 oo shaqaale. shirkadda Apple waxay ka lacag badan tahay wadamada Denmark iyo Sweden dhaqaalahooda la isku daray. Apple waxay dunida ku leedahay in ka badan 500 oo dukaamood oo lagu gado alaabaha ay soo saarto shirkadda Apple. Laptoobyada shirkadda Apple ay soo saarto asalkooda waxa uu ahaa Macintosh oo laga wado tufaaxa nooca hadda kuu muuqda, laakiin waxay u bedeleen Mac oo waxa ay soo gaabiyeen magacii ahaa Macintosh. 1979 shirkadda Apple dhaqaaleed hoos ayuu u dhacay, waxayna ku sigatay gebi ahaanba inuu kambaniga burburo ama uu dumo. ma aysan haysan xitaa lacag ay wax ku soo saaraan, laakiin waxaa caawiyay oo garab siiyey Bill Gates, waxa uuna siiyey $150,000. waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. haddii aad ka heshay fadlan like saar, haddii aad naga cusub tahayna nagu soo biir adigoo calaamadda subscribe-ta taabanaya. mahadsanid.